dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa maanta wada banayn ka samaysay halkani oo ah wadada u baxda waqooyiga magaalada Gabiley ee xaafadda Sharif Cali maamulka heer gobol iyo heer degmada Gabiley ayaa goobjoog ka ah wada banayntii ay maanta halkani ka samaysay dawladda hoose sidoo kale waxaa ku sugnaa goobtani qaybaha kala duwan ee madax dhaqameedka magaalada Gabiley ugu horeynba waxaa ka warbixiyay wada banayntani qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka xogeeyaha fulinta dawladda hoose iyo maayirka degmada Gabiley oo isku xidhaysa miskiin jaamaca saa ka warqabtaan hore waxaynu u fulinay wajigii koobaad oo ku jooga wada Farhaad oo ku joogta wakaalada biyaha horteeda wajiga labaad oo runtii ka kooban wadadaasi oo lagu xidho dooxa iyo biriish ayaa maanta runtii shaqadeedu halkan ka bilaabmaysaa wadadan fayska labaad waxa runtii carqalad ahayd guriyaha ka hor dhisnaa saa ka warqabtaan guriyahaas saddex guriyahaas sharaf bay noo tahay runtii maanta in halkan inagoo isku dhan oo dadkii guriyahaasi lahaana ay goobjoog yihiin in guriyihii la dumiyo oo danta gaarka laga horeysiyo danta guud wadada Sharif Cali ee afartahaada oo wado qurux badana oo ku bixi doonta Sharif Cali isla markaana inoo ogolaan doonto in dhismuhu uu talaabo waqooyiga buurta waxa noo sharafa in dadweynihii wadadaasi ay martay ama guryaha deganaa ayaguna nala qaateen aanu guryahoodina u bilownay maanta oo cawi celintii oo ugu jirtay miisaaniyadda 2021 aanu siinay guryihiina ay maanta dhismahoodii socdaan iyagina ay guryihii ka baxeen si sharaf leh oo qadariyo maamuus leh tani waxay tahay horumarka golaha deegaanka Gabiley oo ku talaabsaday waana waxa ku jirtaa miisaaniyaddii 2021 oo arkasana wadadani waa wado muhiim ah magaaladu waxay fidasaa awalna way kala xidhnayd hase haddii kadib waxay noqon doontaa magaaladu inay waxayaan waqooyina u socon doonto waxaan leenahay gacmo jir baa ku gooyaan hal wala shaqeeyo horumarka laga wala shaqeeyo aadan waxay ka caawin doontaa in magaaladii ballaarato magaaladii ay dibadegaanin lagu sameeyo ay dadkii magaalada sanadkan ku soo ururinay darafyadana ay u socdaan insha Allah taala wadadani waxay yeelan doontaa waa wado quality leh waxaan halkan ka cadeynayaa anigoo kamid ah muwaadiniintii ay guryahooda ku hagaagtay wadadu markaan eega gudoomiye horumarka diyada dadaalka ku jiray gurigiisa deegaanku waxaan go'aan ku gaaray si bilicda magaalada u soo baxdo in gurigeygii anigoo raalli ku ah aan baneeyo si wadadu xaafadda Sharif Cali inoo gaadho magaalada inoo qurux badnaato waxaan u sheegayaa muwaadiniinta kale wadooyinka soo hagaagi doonaan iyaguna inay ku daydaan sidaan yeelay labaad ay cagafta ku horeysay oo wakiilkoogii koobaad afkoogan ku hadlayo arrinka waanu qaadanay lanagumana xumayn kii labaad ee la noogu bedelayna waa kan muuqda ahaan iyo magaalo ahaan intaba horumarkaanu jecelahay dhankooda waxa wada barnayntani ka hadlay madax dhaqameedka gobolka Gabiley aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanu idinku soo dhaweynaynaa farxad bay maanta noo tahay inaanu aragno bilicdii magaalada oo waxqabadkeedii la bilaabo maanta waxa dhaqaaqday hawshii loo ballamay in ay magaalada sidaa u socoto ma aha wadadan Sharif Cali kor iyo hoosba wadooyinku way u baxayaan nin waliba ha ku cibro qaataan oo leenahay maanta muwaadiniinta maxaan ku dhadaa horay guryahooga ee sida fiican u soo dhaweeyay iyagana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin ummadda kale idinka dambaysana insha Allah taala way idinku dayan doontaa muddadii aan sugnay horumarka iyo dhaqaaqa waa bilowdeen aad baad ku mahadnaqanaa qaybta maxaan ku Sharif Cali ee bilicda magaalada ku xidhnayd aad bilowdeen maanta aad baad ku mahadnaqanaa waa idin garab taaganahay dhammaantiin ugu dambeyntii waxa halkani ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye oo u soo jeediyay bulshadu inay u hoggaansanto hawlaha ay dawladda hoose degmada Gabiley ku horumarinayso magaalada jirta in magaalada Gabiley ay fidaysay oo dhowr meelood ay u fidaysay oo ay ka xidhnayd dhinaca waqooyi maadaama ay ka xidhnayd dhinaca waqooyi wado weyn ayaa ka soo baxda xagga koonfureed waxay u baxdaa xagga waqooyi wadadaasi bartankeeda waxa ahaa guryo jir bay wax ku goyn karaan dadku markay gamcays wada isqabsadaan ayay wax wara qaban karaan wax la qabsan karaa Xamsi Cabdirashiid Sheekh Diris MMTV Gabiley